yaraan 12 dhalinyaro Soomaali ah ayaa 12kii bilood ee ugu dambeeyay mindi magaalada London loogu dilay. Waa tiro laga naxo marka aad eegto qalqal ayayna ku abuurtay dadka Soomaalida ee ku nool caasimadda waddankan Britain ee London. dadka qaar ayaa iminka waxay ka fakirayaanba in caruurtooda ay waddankii ay dib ugu celiyaan. Fashion lama kaxayn karayo. Maanta waxaan doonayaa inaan ka yara hadlo dhalinyarada Soomaalida laga hadlayay baryahanba illee waxa galaan gang bay galaan waxyaabaha sababa. Maxay caruurtu u galaan gurubyadan ay isku dilayaan? jawaabteedu runtii ma fududa. waa in dhinacyo badan laga eego. qofka horta waa inuu fahmo meeshu degan yahay, meesha caruurtiisa uu ku korinayo, dhibaatooyinka ay leedahay. maxaan markaa ula jeedaa waalidku waa inuu ogaado meeshu ilmihiisa ku soo korinayo, waa inuu ogaado eeriyada uu degan yahay uu ilmihiisa ku soo korinayo, hadday tahay meel safe ah, hadday tahay meel aan safe ahayn oo gruubyadan kooxaha ay ku badan yihiin gaanka oo ilmihii dhibaataynaya isagina ku khasbisa markaa si uu u helo nabad ama si uu u helo safety inuu group ku biiro ama iyagaba ku biiro si uu isaga celiyo. marka waxa qasaba inaad la socotid waxyaabaha ka jira eeriyada degan tahay. haddii eeriyadii aad deganeed ay noqoto kuwa aanu ka hadlayno dhibaatada badan caruurtii ay ka soo gaadhayso, waxaa xala muxuu qofku samayn karaa? waalidku markaa muxuu samayn karaa? waa inaad ogaato waxyaabaha freega ilmahaagii aad sign up aad ku dari karto, ama ha noqoto sporti ama ha noqoto waxyaabo badan oo loo sameeyay dadka kale deena la degan magaaladaba ay tagaan oo program dheer aad ilmihii uga fikirtid isagoo yar aad u bilowdid programkaas aad ku dhiirigelisid oo aad la socotid. waxa kale oo muhiim ah inaad ilmihii la samaysid waxa uu isagu sameynayo. sportska inaad la samaysid adigu ayaa muhiim ah. waxa idin gaar ah inaad la samaysid ilmihii oo muddo dheer soconaya si aad uga badbaadiso ilmaha dhibaatooyinka ku wareegsan eeriyadu degan yahay, waliba hadday yihiin meel ay ku badan yihiin gaanku. ilmihii haddaad la samayso wixii uu sameynayay oo aad age yar la bilowdo uu age weyn ku gaadho wixii uu ka safaafaya. in coach oo ciyaarta caruurta bara dhalinyaradoo dhan wax bara sportska bara ilmihiisa iyagoo yaryar buu ayuu la bilaabay. imika dee warag waaweyn rag oo jaamacaday qaarkood dhigtaan alxamdulillah. waxa kaloo muhiim ah waa inaad ilmahaagii ka warhayso mar walba insiiba intuu yar yahay. horta waa inaad ogaato saaxiibadu raacayo waalidkood, waa inaad la leedahay xidhiidh. saaxiibadii waalidkooda waa inaad ogaato, waa inaad xidhiidh la ahaato. waa inaad isku daydaan ilmihiina ka ilaalin kartaan oo idinku isku support garayn kartaan oo isku caawin kartaan sida caruurtiina aad maaragtay aad programyo fiican ugu furi lahaydeen community ahaan in ilmihii loo caawinayo. oo waana qof waliba ka fikiro ilmihiisiiba ilmo kale raacaya, waana markaa ilmihii safe noqdaan. waa communityga Soomaalida imika Bristol way yareen meel u furan caruurta Soomaalida ma jiraan inaan kaliya sameeyo sports yara sameeyo. laakiin gaalada haddaad eegto ilmahoodii markiiba waxay ogaanayaan dhibaatada waxa ka khaldan ilmihiisa, wuxuu la raadsanayaa dad caawin kara. meelaha qaar kuleelaha kale samarka kale meelaha jira loogu sameeyo maxay yiraahdaa sharaabyo ka samaysan fruit ayaa loo sameeyaa, kombiyuutar loo geeyaa, meelay ku ciyaari karaan baa la geeyaa. ilmihii waxa laga ilaalinayaa markaa inaanu dabadii u bixino waxyaabo dhibaato aanu la kulmin, kadibna waalidkiiba halkii ka qaadaya.